Hallow, ku soo dhawow barnaamijka maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka. Runtii waa barnaamij aad u faa'iido badan oo aan ku soo kordhinay janaalka Sahanwade. Run ahaantii qof walba oo dhalinyaro ah wuxuu leeyahay hadaf iyo hami sare, kaasoo uu doonayo inuu gaaro mustaqbalka. Markaad yareed waxbaad jeclayd inaad markaad weynaato noqoto. Qof baa jeclaa inuu duuliyo diyaaradeed noqdo pilot yacni. Qof baa yaraantiisii ku haminayay inuu noqdo kabtan kaasoo wada ka ah maraakiibta caalamka isku gooshayso. Qof walba wuxuu lahaa riyo u gooniya. Haddaba su'aashu waxay tahay, sidee uga dhabayn kartaa riyadaad lahayd markaad yareed? Haddii aad doonayso inaad noqoto dhakhtar ama daaci u gargaara diinta Islaamka. Sidoo kale haddii aad doonayso inaad noqoto injineer caalami ah dhanka tiknoolajiyadda ama dhanka dhismooyinka guryaha iyo buundooyinka caalamka, waxa loo yaqaan civil engineering. Sidoo kale haddii aad doonayso inaad noqoto siyaasi caan ah oo dunida oo dhan laga yaqaan. Fiidiyowgan waa fiidiyowgaagii ee fadlan dhamayso daawashadiisa. Ugu horreyn, noloshani waa qaybo badan tahay. Qof walbana waa inuu ku jiro column ama sanduuq isaga u gooniya. Dad baa dunidan ku soo kordhiyay fikrado dunida wax weyn ka bedelay. Dad baa lagu qadariyaa cilmi ay bulshada ku soo kordhiyeen. Dad baa lagu qadariyaa gumaad iyo hagardaamo ay u geysteen ummad aan waxba ka galabsan. Dad baa lagu qadariyaa ixtiraam iyo wanaag ay samaysteen. Adigu maxaad jeceshahay in lagugu qadariyo? Ma waxaad jeceshahay inaad noqoto injineer caalami ah? Ma waxaad jeceshahay inaad noqoto daaci caalami ah sida Dr. Zaki Nayak? Mise waxaad doonaysaa inaad noqoto imaamul caadil, qof hogaamiye ah ama madax kaasoo ku caanbaxay xaqsoor iyo caadilnimo daacad ah? Imaamul caadil waa mid ka mid ah 7 qof ee harsanaysa cashriga Ilaahay maalinta uusan jirin hooska Ilaahay mooyee. Haddaba walaal, qof noocee ah ayaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka? Qof dhalinyaro ah ayaad tahay. Waa muhiim inaad leedahay hadaf iyo hiigsi aad doonaysid inaad gaarto maalin maalmaha ka mid ah. Haddaba barnaamijkeena maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka? Halqadda koowaad waxaan ku soo qaadanaynaa maanta hogaamiye. Waa kuma hogaamiye? Waa qof noocee ah hogaamiyaha dhabta ah? Astaamaha uu leeyahay qofka hogaamiyaha ah ama lagu garto. Culimada ku xeel dheer cilmi nafsiga bulshada aadamiga ah waxay xaqiijiyeen oo farta ku wada fiiqeen ahmiyadda hogaaminta iyo kaalinta ay ku leedahay dhismaha iyo horumarka bulshooyinka kala gedisan. Astaanta koowaad ee uu leeyahay hogaamiyaha waa inuu leeyahay shakhsiyad muuqaal hogaamiye iyo akhlaaq wanaagsan. Qofka hogaamiyaha ah waa inuu ka dhisan yahay dhanka akhlaaqda, dabeecad fiicanna leeyahay. Astaanta labaad waa inuu Allahiisa weyn ka baqaayo, diyaarna u yahay xilka hogaamiyenimo ee bulshada, wadanina yahay. Astaanta saddexaad waa inuu leeyahay aragti dheer waxa soo socda mustaqbalka. Waa inuu leeyahay go'aan sax ah oo uu ku wajihi karo caqabad walba. 4 waa inuu dadka qancin karo, ra'yigiisana si fiican u cabiri karo, si karti ku jirtana hadalkiisa u oran karo, go'aan qaadashana leeyahay. 5 hogaamiyuhu waa inuu leeyahay geesinimo. Marka la dhahayo geesinimo, yacni waa inuu khatarta u bareeri karo. 6 waa inuu leeyahay sharaf integrity. Hogaamiyuhu waa mid dhowra sharafta wadankiisa iyo dadkiisa. 7 hogaamiyuhu ma aha mid kibir badan, isla weyn, dadka aan dhexgelin. Hogaamiyuhu waa qof is-hoosaysiiya, sida naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam. 8 waa inuu leeyahay hal abuurnimo, waxna maarayn karo. 9 hogaamiyuhu waa inuu dadka iskaashi la sameeyo, qadariya ra'yigooda. Waa inuu leeyahay strategic planning, qorshe caalami ah oo uu rabo inuu dadkan ku hogaamiyo. 10 waa inuu si caqli iyo miyir ah wax ku xallin karo, cadiifadahana iska xakamayn karo. 11 waa inuu bisayl iyo waayo aragnimo xambaarsan yahay. Haddaba walaal, 11 sifo haddaad isku aragto waxaad leedahay astaan hogaamiye. intaas ayaan ku ekeenaynaa mowduuceena maanta. Haddaba halqadeena labaad ee barnaamijka maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka ee ka baxa janaalka Sahanwade waxaan soo gelin doonaa barteena YouTube-ka maalin walba oo Jimco ah. Insha Allah la socod wanaagsan. Fadlan si aad noola socoto, subscribe, like, share. mahadsanidin.